Madaxweynaha Somaliland oo maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay Cigaan International Airport ee ku yaalla caasimadda barakeysan ee Hargeysa, halkaas oo lagu soo dhaweeyay madaxweynaha qaranka barakeysan ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo soo laabtay safarkii shaqo ee ugu maqnaa dalkaasi Kenya. Waxaana ka mid ahaa waxyaabihii lagu soo dhaweeyay ciyaarihii hidaha iyo dhaqankii Soomaalida ee hore. waxayna halkaasi aan ka maqnayn ardaydii ka baxday jaamacadaha ee la tababaray shaqo qaran. waa dufcadii koowaad ee shaqo qaran ka baxda, waana dufcadii lagu bilaabay ee sanadkan dhamaysay jaamacadaha. waxaa iyadoo xusud mudan in bulshada reer Somaliland ay halkaa ka wada luleeyeen calankii Somaliland iyo calankii dalkaasi Kenya ee dhaca galbeedka Afrika. ugu dambeyn, markii uu Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda barakeysan ee Somaliland markii uu khudbadda u jeediyay una mahadceliyay dadka soo dhaweynayay bulshada reer Somaliland, si sharaf leh uu macsalaameeyay una salaamay uguna mahadceliyay. cadowga Somaliland ha dhaco, cadowga Somaliland ha dhaco, cadowga bulshada Somaliland ha dhaco, farmaajo ha dhaco, Soomaaliya ha dhacdo.